Intii lagu guda jiray xilli jaamacadeedkii ayaa Salma waxaa u soo dhowaaday qalin-jabinteedii kulliyadda Aadaabta. Waxa ay si khudbad-siro ahaan u guursatay wiilkaas oo ay ahaayeen saaxiibo isku dhow, waxa uuna hal sano kaga soo horeeyay jaamacadda. Wiilkan ma uusan ahayn mid awooday inuu gabadha guri geysto. Markii ay muddo 2 sano ah ku wada joogeen si qarsoodi ah, ayaa maalin ninkeeda waxa uu u sheegay arrintaasoo qalbigeeda farxad gelisay: in arrintoodii ay xalismatay muddo 2 isbuuc ah kadibna uu safri doono. Safarkaas oo ah safar shaqo, kaas oo uu ku qaadan doono mushahar sareeya. Muddo kooban kadibna uu soo laaban doono si uu u shaaciyo guurkooda. Gabadhii iyo wiilkii waxa ay qabsadeen xaflad oo ay ku dabaaldegayaan habeenkaas, waxa ayna ku qabsadeen mid ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada. Habeenkaasna waxa ay ugu magac dareen habeenkii macsalaameynta guurka khudbad-sirada ah. Habeenkaasna waxa ay wada qaateen farxad iyo jacayl fara badan. Ninkii waa uu safray. 2 bil kadibna waxaa qalin-jabisay Salmo, oo waxa ay gacanta ku dhigtay shahaadadeedii jaamacadda. Waxaa ku soo baxay uur, waxaana dhaqdhaqaaq bilaabay canugii yaraa ee caloosheeda ku jiray, halka uu ninkiina u sii safray mid ka mid ah waddamada Khaliijka. Waxa ay ayaamaha socdaanba, ninkii ma uusan sheegin waddanka uu ku sugan yahay iyo magaalada uu ka sii joogo. Wax isku day ahna ma uusan sameynin oo ah inuu kaxaysto gabadha ama inuu guur u shaaciyo sidii uu u ballan qaadayba. Si toos ah ayaa loo waayay ninkii. Xataa ehelkiisa ma aysan ogeyn meesha uu ku sugan yahay. Maalmihii waa ay socdeen, canugiina waxa uu ku weynaaday caloosha hooyadiis. Uurkii waa uu soo weynaaday, fadeexadiina waa ay soo dhowaatay. Maxay samaysaa Salmo? Waxa ay dhexda ka istaagtay marxalad aysan marna isdhehaynin way ku qabsanaysaa. Halka xal ee u muuqday markaa waxa uu ahaa inay cunuga iska soo xaaqdo si aysan ceebteeda dibadda ugu soo bixin. Laakiin waddada ay u marayso maahan waddo dhakhtar ah, waayo waxaa la weydiin doonaa aabbaha dhalay canugan uurka ku jira iyo waalidkeeda. Sidaa darteed, ayada ayaa waxay go'aansatay inay iska soo riddo kaligeed, iyadoo soo iibsanaysa daawo dhireed sun ah oo carruurta lagu soo daadiyo. Markii ay isticmaashay daawo dhireedkii, waxa ay u dhimatay dhiig-bax gurigooda dhexdiisa. Waxa ayna ku dhimatay waalidkeed iyo walaalaheeda hortooda, kuwaas oo aanan ka warhaynin guurkeedii qarsoodida ahaa. Waa ay ka qarisay guurkeeda iyo uurkeedaba. Dhimashadeedii kadib, ehelkeeda waxa ay ogaadeen ay dhaxal siisay ceeb weligood daba joogi doonta, xataa haddii ay ogaadeen in guurkeedii uu ahaa guur qarsoodi ah. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.